waa tahay soo dhawaada daawadayaal xogo dheeraad ah oo laga helay weerarkii kooxda argagixisada al-shabaab ee ku qaaday godka Jilicow yay tahay cidda u fududeysay in kooxda argagixisada al-shabaab halkaasi ay gaarto yaa lagu eedeeyay yaase qaadaya mas-uuliyadda weerarkii kooxda argagixisada al-shabaab ee ku qaadeen godka Jilicow sideese kooxdu ay ku heshay gaadiidka kooxda argagixisada al-shabaab ay u adeegsadeen weerarkaasi cidda iska lahayd gaarigaasi nooca loo adeegsaday iyo asbaabta keentay in kooxda argagixisada al-shabaab ay adeegsadaan gaariga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka rinjigiisa ay ku buufsan tahay islamarkaana shabadda hay-adda ay saaran tahay yay ahaayeen ragga gaarigaasi saarnaa imise ayay gaarayeen waxaa la sheegay in ilaa 8 ruux ay gaarayeen raggani halna darowal uu ahaa midna sargaal uu sheeganaya islamarkaana la waardiyeynayay halka 6 kale gaariga gadaal ka saarnaayeen ee ilaale iska dhigayeen yeesa ka tirsanaayeen halkee laga soo saaray horay miyay argagixisada al-shabaab ula shaqeyn jireen jawaabtaas oo dhan waxaa ku siinaya ninkan aan codkiisa idin fasixi doono kaas oo si faahfaahsan u sharaxaya weerarkaasi cidda fulisay cidda la qorshaysay kooxda argagixisada al-shabaab gaariga ay adeegsadeen taarika sirdoon ay leedahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sidee ku heshay kooxda argagixisada al-shabaab warbixintaas oo faahfaahsan iyo xogo dheeraad ah oo aan macquul ahayn ayaa laga helay xogtaasi weerarka kooxda argagixisada al-shabaab ay ku qaadeen godka Jilicow maxay tahay sababta loo soo bandhigi waayay meedadkii raggii lagu laayay dagaalkaasi sidoo kale ninkani ayaa sharaxaad kooban ka siinaya aan isla daawano ama aan isla dhageysano codkani ninkani sharaxaya weerarkaasi xogaha aan macquulka ahayn ka bixinaya meydka waxa la kaga qariyay dadka weerarka soo qaaday inta la khubo 5 ilaa 6 la khubo waxay kamid ahaayeen duufaan hay-adda nabad sugidda waxay ahaayeen isu soo dhiibayaal al-shabaab ka yimid oo taliyaha nabad sugidda Mahad Salaad oo dhawaan xalasaniinta ama meesha dhaqan celinta ka soo bixiyay oo ku dhagan aad ugu dhow oo ka soo bixiyay kuna daray ciidanka duufaan ciidankaas shabaabka ee lagu daray ma aysan ahayn dad vatin lagu sameeyay ama baaritaan dheer lagu sameeyay ama la xaqiijiyay inaysan qatar ku ahayn naftooda iyo dadka taliyaha ayaa go'aankaas gaaray waxaan isleeyahay madaxweynaha sheekh haddousan si saxa u baraarugin haddousan si saxa isaga baarin waxa hadda socda naftiisa ku maqan waadna ogaa doontaa 4 bisha Oktoobar ee lagu jiro markii weerar ay ku soo qaadeen al-shabaab xarunta gobolka Banaadir ee nabad sugidda godka Jilicow waqti galaba sidoo baraha bulshada ku aragteenba waxaa weerarka soo qaaday dawladdu waxay sheegtay 7 mid kas qarxiye ku jiro laakiin xogtaan hayna waa 8 nin shirka ku jiray gadaale oo sheegtay inuu madax yahay darawalkii waday iyo rag iska dhigay waardiyo baaburka qaybta gadaal ka saaran baaburka dabcan godka Jilicow dadka yaqaano wuxuu leeyahay dhowr meelood oo lagu baaro inta godka Jilicow soo gaaray midda koobaad uu ka soo gudbay talabaad waa uu ka soo gudbay midda saddexaad sida xogta ku hayo ayaa lagu joojiyay oo lagu yiri warniyahow meeshan ma dhaafaysidee ciidanku baaruka ka degeen aduguna dad waco maadaama aan ku aqoonay laakiin birtu way jilacsanay sida la ii sheegay adiga meeshaasi uga degeen qoladii al-shabaab dabcan ma warrayn bay inay sii gudbaan sababtoo ah qaraxa ayaa ayagas waxyeelayn doona haddii ay meeshaas ka dhaafaan baabuurka xoog meesha ku galay ganjeelkii isku qarxiyay xogahaas waa inta aad ka hesheen baraha bulshada ama dad badan oo maaragtay arrimaha social media aad uga hadla ay soo qaateen maxaa inka qarsoon marka waxaan uga baranay hay'adda dawladda Soomaaliya markii ay soo afjarto dhagar qabayaasha weerarka soo qaaday in ay soo bandhigto meydadka dadkii wax geystay hadday noqoto furimaha hore dagaalka iyo hadday noqoto meelaha goobahan oo kale oo shabaab weerar ku soo qaadeen ma aysan dhicin oo meydadkiina lama tusin sababtu maxay tahay looma baahna
إن ميت كلا أكلوا بحنا مهمة عن وايلو أركا ميت محاسة هو يعني رما سوا كود في دولة الصومالية okay that's crap that's absolutely صح ما عن غلط ويان ما دولة الصومالية كم قد بين إنه ميت صوم بدكتور لكن واحد جيران إيش يا ميت كلا إنك قريب ميت كواحد إنك قريب تتكوارك سوق عادي أنت الخبو شن إلا لح الخبو waxay kamid ahaayeen duufaan hay-adda nabad sugidda waxay ahaayeen isi soo dhiibayaal al-shabaab ka yimid oo taliyaha nabad sugidda mahad salaad oo dhowaan xalasaniinta ama meesha dhaqan celinta ka soo bixiyey oo ku dhegan aad ugu dhow oo ka soo bixiyey kuna daray ciidanka duufaan ciidankaas shabaabka ee lagu daray ma aysan ahayn dad vatin lagu sameeyey ama baaritaan dheer lagu sameeyey ama la xaqiijiyey inaysan khatar ku ahayn naftooda iyo dadka taliyaha ayaa go-aankaas gaaray sababta ay u gaareen lama yaqaano okay haddii meydadkii lasoo bandhigo nimankii ay ka soo tageen oo la dagaalka kula jireen oo ciidanka ay isla ahaayeen oo maaragtay hay-adda nisa ka wada tirsanaayeen way aqoonsanayaan isla markiina dadka waxay la wadaagi doonaan oo u sheegi doonaan saaxiibadood faamilkooda ku sir qasa doonaan war ninka meesha lagu dilay hebel oo ahay anigoo ciidankii ka tirsanaay ururkaygu ka mid ahay maaragtay unugteedu ka mid ahay hurinteedu ka mid ah dowladdu ma ogola taas dabcan saxna maba ahanba waa dhib badan taha si taasay soo dhicin meydkii waa la qariyey maxaa loogu sheekay doonaa ciidanka saaxiibadood ay dhinteen ama la waayey dabcan wax kale loogu sheegi doonaa shaqadii ka tegey waa ruqsaystay waa la xiray shaqadii laga ceyriyey fariimahan iyo jawaabahan ayaa la sii doonaa ciidamadii ay la shaqaynayeen markay waayaan saaxiibadood ciidankan mar dhow marka hadda taliyuhu soo laabtay ayuu ka qaaday ayuu ka soocay ayuu ka waday meeshii dhaqan celinta ay ku jireen okay baabuurka la isticmaala muxuu ahaa baabuurka la isticmaala wuxuu ahay baabuur shabaab lahaayeen laakiin ay ku soo buufiyeen magaca hay-adda rinjiga hay-adda astaanta waa hay-adda nabad sugidda maxaa kale waxaa jiray baabuur geerash ku jiray oo hay-adda nabad sugidda gaadiidkeedu waa nambarsan yahay si loo aqoonsado number uu leeyahay aan taargada ahayn numberkaas ayaguna waa isku aqoonsadaan system ahaanna waa lagu aqoonsadaa numberkii baabuurkii watay number 7 baabuur geerish ku jiray oo haleysnaay oo geerishka hay-adda ku jiray oo la samaynay numberkiisa ayuu watay baabuurkaani number 7 ayuu ku soo gudbay dabcan hay-adda ID-geedana waa watay hay-adda ID-geeda waa la heli karaa laakiin muhiimadda waxay tahay siduu ku ogaaday number 7 baabuurka ah 7 inuu geerish ku jiro waxaa kaloo iyadana muhiima geerishka baabuurka ku jiray imisuu ku jiray wada shaqaynta ka dhaxaysa nimanka geerishka gaadiidka nimanka haya oo baabuurkan number 7 og meesha uu yaallo iyo al-shabaab xiriirka ka dhaxay sidee ku ogaan karaan shabaab inuu baabuurkan meesha yaallo number 7 oo geerish ku jiro dabcan hay-adda la shaqaysay hala shaqaysa ma xumee qorshaha dagaalka weerarka ay soo qaadeen waxaan ognahay inuusan 2 maalmood iyo 3 maalmood wax go'aan lagu gaaro maaha waa wax maalmo qaata asbuucyo qaata bil qaata ama 2 bilood qaata in qorshe intaas la ciidan niman intaas loo isqarxinaya la soo diyaariyo nimankan midba meel laga keenaa markii la soo diyaarinayo la soo tashkiiliyey laga dhaadhacsiiyey baabuurkii iyo gaadiidkii qaraxii lagu soo raray waxaasoo dhan in la soo saaro waxa weeyaan waa wax u baahan hawl iyo shaqo ma aha wax fudud baabuurka marka haleysnaay oo geerishka ku jiray oo intaasoo maalmood sugayay in numberkiisa la isticmaalo lafteeda waxa weeyaan waxay qorshahu qayb ka ahay laana baabuurku wuxuu sida muuqata number 7 inay soo isticmaalaan waa inay ogaayeen number 7 inuu geerish ku jiro bil ka badan geerishkana baabuurkaas lagu haayay muddo bil ka badan si numberkiisa loo isticmaalo san howl oo master active noqon oo howlgeli isku xirka marka intaas la eg oo ah baabuurkii in la isticmaalo numberkiisa baabuurkii numberka laha geerish lagu hayo la soo buufiyey ciidankii hay-addu ay lahayd la soo saaro hubkii hay-addu ay lahaydna saan aaminsanahay iyo uniformka hay-addana soo qaatay iyo maaragtay iyo ID-goodii ma aha wax wili yaroo shabaab ay ka shaqayn karaan ma aha wax dhowr qofood oo shabaab ay maaragtay go'aan ka gaari karaan waa wax ka weyn oo organized ah oo shaqo weyn oo maaragtay la dhihi karo
waa laga soo wada shaqeeyey dad waaweyn ayaana ka shaqeeyey waxaa kaloo idan xusid mudan ciidankii meesha galay waxay aad xodogaal ugu ahaayeen meesha wax kala jiraan markay soo degeen automatically waxay aadeen meesha ay ku jiraan isi soo dhiibayaasha dadka la yiraahdo defectoriska iyo meesha hubku ku jiray xaafiiski obviously dad qodxod ogaalah ayaa hagay dowladda Soomaaliya maxay samaysay marka waxay xirtay laba wiil oo kuwa waardiyaha meesha ka mid ah waran AT-da kuwa yani qaybta waardiyeysa ayay xirtay waa loo xiraa ninkan uniform oo qaba shirkii oo saraakiisha hay'adda nabad sugidda ka dhici jiray maalintaas meesha baabuurka hay'adda wataa taliyaha wuxuu sheegtay inuu garasbaan leeyahay ceelasha biyaha kino wax reasonable maxay tahay sababta loo xiraa su'aalaha marka la isweydiinaya waxay tahay maxay tahay sababta oo taliyaha nabad sugiddu ciidan al-shabaab aan la baarin al-shabaab aan la xaqiijin oo cadadkooda aad u tiro badan yahay intaas la eg oo ugu dhex daray ciidamada nabad sugidda ee amniga sugaya qaranka waxaa kaloo iyadana muhiima oo aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay muhiim ugu tahay inay ogaadaan in ilaa 7 agaasime oo qaarkood ciidamo badan xukumaan qaarkood xafiisyada dowladda hay'adda nabad sugidda qaybo waaweyn oo kamid ah xukumaan qaarkood yani mas'uuliyad aad u sareeya hayaan ma raba hadda inaan sheego magacyadooda iyo positionada hayaan laakiin 7 agaasime oo aad muhiim ugu ah lafdhabar ugu ah hay'adda nabad sugidda waa lafdhabarka amniga qaranka Soomaaliya ayagana waxay lafdhabar u yihiin hay'adda nabad sugidda mas'uuliyadda intaas la eg inuu taliyan Mahad Salaad uu u dhiibay asaga ayaa soo xushay raggaas qof kasta oo hay'adda hore uga soo shaqeeyey way inta badan dadkii la yaqiino way isaga baxeen hay'adda sad ogtihiin waxaana looga kala cararay cabsi laga qabo ninkan iyo dadka iswata waxa ay yihiin ayadoo cabsidaasu jirtay waxaa dhacday in uu haddana tanu maanta dhacday oo dee uu xeraday dadkii dhaqan celista iyo isi soo dhiibayaashii defectoriska wixii la dhahayay iyo nimankii shabaabka ahay oo si toosa ciidankii ugu dhex daray cawaaqibkii ka dhashana waa tan maxaa soo socon kara marka maxaa imaanaya waxaa imaanaysa in isku hadlayntii meesha ka baxdo waxaa imaanaya in laisku hadlay waayo hay'adda nabad sugidda waxaa imaanaysa in adduunkii kula shaqaynaya laannooda way ka xog badan yihiin inay faraha kaa laabtaan oo iska kaa ilaaliyaan waxaa imaanaysa in magaca hay'adda nabad sugidda airportka lagu weeraro madaxtooyada lagu weeraro hoteelada lagu weeraro dekedda lagu weeraro xogaha kaloon helayana waxay sheegayaan al-shabaab sidii u dabaaldegeen 2 bilood 3 bilood la soo dhaafay weligood ma dabaaldegeen sababta waxay dhaheen waxaan haysanaa oo noo shaqaynaya oo hay'adda nabad sugidda ka mid ah oo noo jooga meelal lafdhabar iyo halbowlayaasha amniga qaranka ah dadan aad ugu kalsoon oo nala shaqaynay kuwa nabad sugidda ma hadda ka hadlaya ma kuwaanaan ogeyn oo dabcan mas'uuliyad kale ugu magacaabana ma naqaano laakiin waxaan inii sheegayaa inay aad ugu faraxsan yihiin meesha wax u marayaan waxaan dhihi lahay haddii ciidanka weerarka soo qaado uu yahay ciidankii hay'adda nabad sugidda haddii baabuurka la isticmaalay uu yahay magacii hay'adda nabad sugidda iyo uniformkii hay'adda nabad sugidda iyo hubkii hay'adda nabad sugidda laakiin gaadiidka la isticmaalka numberka hay'adda la isticmaalana uu yahay hay'adda nabad sugidda isku xir intaas la eg iyo wada shaqayn intaas la eg inay dhex marta shabaab iyo hay'adda nabad sugidda waxa la xirana 2 wiil oo qaybta waran la yiraahdo ka tirsan ay yihiin intaan maqlay waxa weyn meeshii wax ka bukeen lama gaarin meeshii qaladku ka jira lama taaban meeshii dhibku ka jirana lama ogaan waana leesu maldahaya dee waxbaa leesu huginaya waxaad maqlayseen nin la yiraahdo
maxamed cabdi dhiblaawe oo dhowaan waxaan malaynaa 9kii bishii 9aad lasoo dhaafay hay'adda nabad sugidda ay sheegtay in la dilay oona ahay ninkii ka dambeeyey isku daygii dil ee madaxweynaha xasan sheekh maxamuud loo geysan rabay markii uu aeroboortka usii socday idaacadaha aadaa looga hadlay inuu ahaa ninkii ka dambeeyey lasoo qabtay ma ahayn ninkaas waa been ninkaas wuxuu ahay kuwa canshuurta aruuriya qatarna ma ahayn wax qatartiisuna waxay ahayd lacagu dadka aruuri jiray wax oo xasan sheekh dilkiisa wax ka ogaay ma jirto xasan sheekh dilkiisa ninka wax ka ogaay waxaa lagu magacaabaa cumar xasan nuur cumar doolli ayaa lagu naadaysi jiray wax la og yahay waa cumar xasan nuur cumar doolli oo hadda ka hor la xiray meesha baqaarku u kareysnaay shaqaalihiisa mid ka mid a meesha ku dhintay fakaday ilmihiisa ay deganaayeen ceelasha biyaha iyo xaawo cabdi intaan xogta ku hayo kala cararayoo kala baxay intuusan qaraxu dhicin ka hor isagu ka tegey waqti gaaban ka hor meesha qaraxu ka dhacay ninkaasaa ka dambeeyey yaa ka kaalmeeyey yaa gacan ka geystay hay'adda nabad sugidda dad maanta waaweyn ayaa gacan ka geystay sidaan xogaa ku hayo xasan sheekhna inuu iska baara weeyaan waxaan isleeyahay madaxweynaha sheekh hadduusan si saxa u baraarugin hadduusan si saxa isaga baarin waxa hadda socda naftiisa ku maqan waadna ogaa doontaa